fresh water, salty water. ama waad maqashay ama waad aragtay intii bad biyo laba nooc ay kala hayso oo isku darsameynin waatana sawirkan fiirsan ilaa awoodiisa labadan biyo wax kale u kala dhaxay malaha wax haaya oo dirbi malaha wax leen u shoraysan oo dhahay meeshan joog malaha ilaa awoodiisa waa labada bad waa kala dhadan tan waa biyo fresh tan waa cusbo maxay yeel ilaa awoodiisa waa laakiin أنا سيدي أي واحد سكولو دعين ما تكون شيء قدونا سبسكرايب سارة يلوبين يا بنا شاننا كوسوب بقوني سين سبسكرايب مسارسي مرة ويسقفين عنينك wax cusub kugu maaha inaad hal bad gudaheed as biyo laba nooc kala dhama inaad la kulantid dhinac maxaa kala kulmay biyo oo jumbi oo cusbo leh oo afka taal saari karin dhinac kale maxaa kala kulmay biyo fresh oo fiican oo saafi as kala kulmay biyahanan isku darsameyn maxay kamid tahay muujisooyinka Ilaahay kamid British Columbia Canada maxaa waaye ugu weyn oo Ilaahay weyn aldaha Faransa aldaha jira wiigaasayte biyihiisa iskuma darsamaan waa dhinacna waa bad dhinac waa fresh dhinacna waa cusbo biyahaas iyagu maxaa la sheegaa intaas oo sana markii joogaan ay waqti kamid ah isku darsamaan la sheegaa oo zaid iskugu darsameen oo in yar camal iskugu darsamayeen biyahan ay taasane markay scientist iyo dadka cilmiga leh markay si baareen oo ay daba galeen maxaa la soo ogaaday biyahan saane inay sabab ama sababas Ilaahay saanu yeelintay jirto sababooyinka maxaa kamid ah sida xayawaanada ku nool maxaa jira xayawaano kala duwan oo bad hoosteeda ku nool oo zaid u badan xayawaano ay ku isku dhex jiraan kuwa maxaa jira oo raba oo ama u fiicanta biyaha iyo cusbada oo cusbada la'aantood loolaan karana jiro oo jirkooda cusbada ku shaqeynay miis weydii suuliga biyaha iyo kuwan kale oo fresh ka ah maxaa jira xayawaano oo biyaha fresh ka la'aantood loolaan karan oo biyaha sayta fresh ku nool biyaha cusbada hadii daaraan wayba dhimanayaan camal soo biyahanayta hadii Ilaahay sabab ayuu u yeelay oo reason jira reasonka iyo kasaad waa mid hadda niso sheego oo xayawaanada oo ku nool oo caafimaadkooda ugu fiican yihiin ayaa kamid ah mid kale biyahan maxaa la sheegaa intii temperature-gooda ay kala duwan yihiin biyahan salt ama cusbada temperature-gooda way sareysaa oo degree Celsius way sareysaa biyahan kale oo fresh kana temperature-gooda waa low marka temperature difference marka la biyaha ku xoolaha ayay u sii fiican yihiin xoolo ama xayawaano maxaa jira oo biyaha iyagu cusbada oo qandacay ama kuleelka u fiican yihiin kuleel zaid ma laakiin waa yara qandac u fiican yihiin ayaa jira oo caafimaadkooda uu isku jira dad biyaha xoolo xayawaano kale maxaa jira oo biyaha iyagu oo fresh oo qabowga oo kuleelka aan heena u fiican yihiin caafimaadkooda u fiican yihiin saas daraadid biyahan hadii isku darsamaan xayawaanada kulli oo badida ku nool waa dhib ugu maada oo haba bedel ama caafimaadkooda wax u dhima like for example biyaha xayawaanada hadda cusbada ku nool hadii la geeyo biyaha fresh kale hadii la geeyo waa isbedel weyn ku imaada oo caafimaadkooda uu isbedela camal soo Ilaahay sababtu biyahan iskugu darway sababooyinka iyaga ayaa kamid ah mid xigta maxaa waaye many industries such as fishing tourism maxay u baahan yihiin biyo kala nooc markay activity-gooda ay kaaragareynayaan ama ay hagaajinayeen sifa dadka UK ay activity-gooda ama waxooda ay u hirgasho Ilaahay muxuu awooday intii biyaha UK as laba nooc u kala dhiga sifa labada nooc fresh biyaha oo fresh waxay u baahan yihiin ay u isticmaalaan biyaha salty waxay u baahan yihiin ay u isticmaalaan sifa dadka UK activity-gooda ama shaqooda u hirgasho mid kale maxaa waaye nutrition waa biyaha UK labada meel markay isku imaanayeen oo biyaha fresh iyo biyaha salt isla bartay isku imaanayeen maxaa ku jirto nutrient ama nafaqo oo xoolo ama xayawaano biyaha ku dhex jiro caafimaadkooda meesha ku jiro oo maxaa jira xayawaano maxaa jira oo mar waqti taga within the day ama habeenka ama maalintii biyaha fresh ka taga markii maalinta la gaaran biyaha saltiga ama biyaha cusbada taga ayaa kala jira
sifa biyaha iyuku ama sifa xoolaha iyuku ay noloshooda ama caafimaadkooda u fiicnaada. meesha iyada baariga asaga maxaas ugi meel camal oo way kala bedelan karaan, hawada ay ka bedelan karaan, oo meeshii rabaan dhinacii rabaan xilligii rabaan ay aadi karaan, nutrient ama nafaqo ka buuxdo. So guys, maanta videoga idin soo diyaari. So thank you guys for 9 subscribers still waa idin mahadcelina. qofkan bini'aadan ku mahadcelinin ilaahay u mahadcelinin. thank you guys, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. 200 kamil guys, bye bye.